gabadhan waxay timid si ay u soo booqato saaxiibkeed balse markii ay gaartay goobta waxay aragtay isaga oo dhabarka ku sida gabadh kale labadoodu waxay u muuqdeen kuwa aad isugu dhow Roger ayaa si degdeg ah uga cararay inuu wax sharaxo wuxuu sheegay in waxa ay aragtay ay ahaayeen isfaham la'aan isla markaana xaqiiqadu aysan ahayn sida ay u malaynaysay maya markii ay maqashay hadalkaas si qabow ayay u gaftay arrinta taasoo xaaladda ka dhigtay mid aad wax awkward ah leah ayaa si degdeg ah u dhex gashay si ay wax u sharaxdo waxay sheegtay in maamulaha dukaanku kaliya u dabaaldegayay inay noqotay shaqaale aad u wanaagsan waxay tiri Roger oo dhabarka ku qaaday wuxuu ahaa kaftan kaliya Roger ayaa si dhaqso ah jaakadiisa uga siibay wuxuuna leah u tuuray kadib wuxuu si degdeg ah maya uga casuumay inay casho u baxaan laakiin maya ayaa hadalka ka jartay waxay tiri leah ha soo raacdo Roger wuu diiday wuxuu sheegay in haddii ay dhammaantood baxaan aysan jiri doonin qof dukaanka ilaaliya isla waqtigaas saaxiibkii ugu fiicnaa Roger Lewis ayaa soo muuqday leah ma aysan haysan wax doorasho ah waxay raacday Roger iyo maya oo ay wada aadeen maqaayad markii ay gudaha galeen leah aad ayay ula yaabtay waxa ay aragtay weligood ma aysan gelin maqaayad heerkaas ah markii ay dhammaantood fadhiisteen maya waxay leah ku tiri inay dalbato cuntada ay rabto leah waxay furtay liiska cuntada laakiin wax badan kama fahmin maya waxay aragtay wejigeeda oo xishoonaya waxayna si qanacsan u dhoola cadaysay leah ayaa liiskii xirtay waxayna si daacad ah u sheegtay inaysan fahmin luqadda ingiriisiga waxay tiri meel sidan oo kale ah weligay ma imaan Roger adiga ii dalbo anigu wax kasta waan cuni karaa laakiin maya ma aysan rabin inay arrinta halkaas ku dhamayso waxay leah sii weydiisay nooca khamriga cas ee ay rabto leah waxay tiri iyaduna khamriga waxba kama doorato Roger ayaa si degdeg ah u dhex galay wuxuuna soo jeediyey khamrigii ay hore u cabeen markii cuntadii timid maya waxay si ula kac ah ugu hambaliyeysay leah inay noqotay shaqaale rasmi ah kadib waxay si ula kac ah leah ugu keentay xaalad ay ku muujiso inaysan aqoon sida saxda ah ee koobka khamriga loo qabto leah waxay si aan ula kac ahayn ugu dhacday dabinkii maya aad ayay ugu faraxday qorshaheeda leah markaas ayay fahamtay waxa socda si ay xanaaqeeda u dejiso ayay cabtay khamrigii markii ay koobkeedii dhamaysatay waxay Roger ka codsatay inuu mid kale ugu shubo Roger ayaa dhaladii qabtay laakiin maya ayaa si degdeg ah uga qaadatay iyadoo xaasidnimo ka muuqato ayay iyadu leah koobkeeda si buuxda ugu shubtay indhahooda ayaa isqabtay jawiguna isla markiiba wuxuu noqday mid kacsan cashadii kadib maya waxay si ula kac ah u muujisay sida wanaagsan ee xiriirka u dhexeeya iyada iyo Roger u yahay waxay leah u diraysay fariin cad isla waqtigaas telefoon ayaa soo dhacay wuxuu ku saabsanaa alaab loo keenayay dukaanka raashinka Roger wuxuu telefoonka ku mashquulay isagoo ka doodayay lacag yar oo ku jirtay biilka maya way ka xanaaqday waxay gacanteeda ka fogaysay gacanta Roger iyadoo ka baqaysa inuu hortooda ku ceebayo markii uu telefoonka dhigay Roger ugu dambeyn wuxuu ogaaday inuu maya iska indha tiray si degdeg ah ayuu raali gelin uga bixiyey wuxuuna u soo jeediyey inuu gurigeeda geeyo laakiin maya way diiday Roger wuxuu rabay inuu weydiiyo sababta balse Sen ayaa si lama filaan ah u soo muuqday Sen muddo dheer ayuu maya jeclaa wuxuu ku casuumay inay gaarigiisa raacdo maya way aqbashay Roger wuxuu daawanayay iyadoo saaxiibtiis fuulaysa gaariga raaxada ah ee Sen leah oo dhinac taagnayd ayaa arrinta si hoose uga qososhay markii Roger gurigiisa ku noqday wuxuu si aan kala go' lahayn u eegayay telefoonkiisa isagoo sugaya in maya fariin u soo dirto wuxuu dib uga fikiray dhammaan wixii dhacay maalintaas markii uu arrinta si fiican uga fikiray wuxuu is eedeeyey wuxuu dareemay inuu dayacay maya maalintii xigtay Roger wuxuu aroortii hore tagay meel ka hooseysa dhismaha ay maya deganay wuxuu doonayay inuu daacadnimadiisa ku kasbado maya mar kale intii uu maya shaqada u waday Roger si dhab ah ayuu raali gelin uga bixiyey wixii dhacay wuxuu ballan qaaday inuusan mar dambe samayn doonin khaladkii hore xitaa wuxuu kaftamay isagoo sheegay inuu nasiib leeyahay maadaama uu helay saaxiibad wanaagsan dadaalkii Roger wuu miro dhalay xiriirkoodii ayaa dib u hagaagay kadib Roger wuxuu ku noqday dukaankii laba wariye ayaa gudaha ugu yimid waxay sheegeen in xarunta dhexe ay amartay in dukaanka laga sameeyo muuqaal xayeysiis ah waxay sidoo kale doonayeen in qoyska maamulaha uu ka qayb qaato muuqaalka si loo muujiyo sawir qoys iyo shaqaale isku wanaagsan waxay codsadeen in la qaado sawir uu maamuluhu shaqaale dhabarka ku sido Roger si adag ayuu uga hor yimid wuxuu ka baqayay in sawirkaasi gaaro maya wariyaashii ayaa sii waday inay arrinta ka hadlaan Roger ayaa mid ka mid ah dhinac u jiiday ka hor inta uusan hadalka sii wadin wariyihii wuxuu Roger u sheegay in sawirka aan si dadweyne ah loo faafin doonin Roger muddo ayuu ka labalabeeyey markii uu gadaal u jeestay wuxuu arkay qoyskiisa oo durba diyaar u ah sawirka ma uusan haysan doorasho kale wuxuu qasab ku noqday inuu sawirka galo maalintii xigtay markii duubistii la dhameeyey Roger wuxuu ogaaday in sawirkii internetka lagu soo dhigay tirada dadka daawanayayna si xawli ah ayay u kordhaysay waxa ugu xumaa waxay ahayd in maya ay iyaduna aragtay sawirka Roger wuxuu doonayay inuu wax walba u sharaxo habeenkaas ayuu si degdeg ah u aaday dhismaha maya wuxuu rabay inuu halkaas ku sugo oo uu runta u sheego laakiin dhowr saacadood kadib wuxuu arkay maya oo nin kale dhabarka ku sida oo guriga kusoo laabanaysa maya waxay weli u muuqanaysay qof faraxsan waxayna ninka ka codsanaysay inuu wareego Roger wuxuu fahmay inay maya xanaaqsan tahay kadib markii ay aragtay sawirkii laakiin habka ay u dhaqmayso ayaa dareen xooggan ku abuuray waxa ugu xanuunka badnaa waxay ahayd markii ninkii maya soo qaaday uu gudaha gurigeeda galay ma uusan iska tegin wuxuu si caadi ah gudaha ugu galay guriga maya Roger iyo maya waxay wada joogeen muddo 3 sano ah intii 3daas sano ahayd Roger weligiis gudaha guriga maya ma gelin laakiin nin aan xitaa aqoon u lahayn ayaa hadda si fudud ugu dhex galay gurigeeda sidii qof gurigaas iska lahaa Roger wuxuu istaagay banaanka isagoo yaaban qalbigiisana waxaa ka buuxsamay shaki iyo xanuun markii uu gambaleelka albaabka garaacay booliisku si degdeg ah ayay uga soo baxeen gudaha waxayna qabteen Roger waxay u maleeyeen inuu meesha u yimid inuu wax ka dhaco Roger wuu argagaxay wuxuuna si degdeg ah ugu sharxay inay jirto shaqaale la yiraahdo Leah oo ka shaqaysa dukaankiisa isla markaana uu iyada raadinayay laakiin nasiib darro goobtan waxaa sidoo kale joogtay qof kale oo la yiraahdo Leah arrintu sidaas ayay uga sii murugtay nasiib wanaag Roger wuxuu watay heshiiska shaqada ee Leah wuxuu booliiska u sheegay in Leah ay isaga u shaqayso isla markaana lacag badan laga waayay dukaankiisa sidaas darteed ayuu meesha u yimid inuu arrinta xaqiijiyo booliisku waxay ogaadeen inay khalad sameeyeen sidaas darteed Roger ayay sii daayeen Roger wuxuu si degdeg ah ugu noqday dukaankiisii balse wuxuu arkay albaabka oo qufulan sigaarkii dukaanka oo dhan ayaa meesha ka maqnaa Roger aad ayuu uga murugooday wuxuu wacay aabihii si uu ugu keeno furaha keydka ahaa aabihii ayaa yimid isagoo jirkiisa ay ka muuqdaan nabaro iyo dhaawacyo badan wuxuuna Roger u dhiibay furihii Roger wuxuu mar kale galay dukaanka wixii uu gudaha ku arkay ayaa si weyn uga yaabiyey sigaarkii la waayay dhammaantood way soo noqdeen Leahna gudaha ayay joogtay sanduuqii lacagta lagu keydinayayna waxba kama qaldana Leah oo yaaban ayaa Roger weydiisay sababta uu habeen dambe dukaanka u yimid isla waqtigaas gabadhii sarkaalka ahayd ayaa si lama filaan ah u soo muuqatay
waxay raadinaysay leh ay ku eedaysay inay lacagtii xaday markii leh magaceeda maqashay waxay weydiisay sarkaalku waxa uu doonayo waxayna u dhiibtay warqadeeda shaqo sarkaalkii iyo leh ayaa isbarbar dhigay xogtii ku qornayd waraaqaha ugu dambayntiina runta ayay ogaadeen sarkaalku wuxuu si khaldan u akhriyay lambarka 6 isagoo u qaatay inuu yahay 5 dhammaan dhacdadii waxay ka dhalatay qalad tiro oo fudud leh markii ay fahamtay in tuug loo qaatay aad ayay u xanaaqday waxay alaabteedii qaadatay waxayna meesha uga baxday iyadoo aan hal eray odhan roger ayaa markiiba daba orday oo u yeeray leh waxay u sheegtay in eedadeed ay si aad ah ugu baahnayd lacag sidaas darteed ay xoogaa lacag ah uga amaahatay sanduuqa dukaanka si ay u caawiso waxay ballan qaaday inay roger si toos ah ugu sharxi doonto wax walba leh way qosashay waxayna sheegtay in tani aysan ahayn markii ugu horeysay ee qof si khaldan u fahmo roger wuxuu ogaaday inuu dhaawacay dareenkeeda sidaas darteed ayuu gurigeeda ugu tagay si uu raaligelin uga bixiyo mar kasta oo uu albaabka garaaco leh kama aysan jawaabin roger oo niyad jabsan ayaa ugu dambayn ka tegey laakiin maalintii xigtay leh iyadoo iskeed ah ayay dukaanka ugu soo laabatay markii roger uu arkay si farxad leh ayuu ugu soo cararay inuu soo dhaweeyo wuxuuna si uu raaligelin uga bixiyo u keenay cunto hilib lo'aad ah oo nafaqo leh laakiin leh gebi ahaanba way iska indhatirtay waxay dhabarka u jeedisay waxayna dib ugu noqotay shaqadeedii wax kasta oo leh samaynaysay roger gadaasheeda ayuu joogay isagoo isku dayaya inuu caawiyo wuxuu ku adkaystay inuusan raaligelin ka bixinin balse uu shaqada si dab ah u jeclaa maalin maalmaha ka mid ah iyadoo leh shaqadeeda ka haysa dukaanka yar ayay saaxiibadeed muuqaal u soo direen muuqaalku wuxuu ahaa wiilkii leh ay jeclayd oo qoobka ciyaaraya leh ayaa muuqaalka furtay balse si weyn ayay ula yaabtay markii ay ogaatay in qofka muuqaalka ku jira uu yahay roger oo samaynaya qoobka ciyaar qosol badan dhaqdhaqaaqyadiisu aad ayay u qosol badnaayeen leh aad ayay uga heshay waxayna bilowday inay iyaduna la dheesho muuqaalka dhanka kale ee magaalada roger isaguna wuxuu qoobka ciyaarayay ka hor inta uusan seexan wuxuu doonayay inuu ugu yaraan hal mar sameeyo qoobka ciyaarka dhaqdhaqaaqyadiisuna waxay ku dhawaayeen kuwii leh markii uu dhameeyey qoobka ciyaarka roger wuxuu daal awgiis ugu dhacay sariirtiisa laakiin maskaxdiisa waxaa ka buuxay fikrado ku saabsan leh wuxuu telefoonkiisa soo qaatay wuxuuna daawaday muuqaalada kamaradaha ammaanka ee dukaanka markii uu arkay leh oo qoobka ciyaaraysa isaguna wuu ku dayday dhaqdhaqaaqyadeeda si lama filaan ah muuqaalkii wuxuu isu bedelay riyo roger iyo leh waxay isku arkeen iyagoo xiran dhar aan caadi ahayn kuna jira gudaha dukaanka waxay wada qaateen waqti gaar ah jawiguna wuxuu noqday mid jacayl iyo xamaasad leh ugu dambayn labadooduba way isdhunkadeen waxaana shaashadii qabsaday mugdi leh ayaa hurdadii ka toostay inkasta oo ay ahayd riyo keliya haddana si dhab ah ayay u faraxday way kacday waxayna sii waday qoobka ciyaarkii laakiin dhowr nin oo dhib wadayaal ah ayaa arkay leh waxayna bilaabeen inay dhibaan waxay ka dalbadeen inay mar kale u dheesho leh way iska indhatirtay sababtoo ah waxay ku jirtay saacaddii shaqada iyadoo xanaaqeeda qarinaysa ayay alaabtii ay iibsanayeen u xisaabisay laakiin nimankaasi mahadnaq ma lahayn lacagtii ayay miiska ku tuureen dabadeedna way baxeen leh aad ayay u xanaaqday waxay rabtay inay daba orado oo cashar siiso laakiin waxay ka baqday in arrintu dhibaato u keento maamulaha dukaanka sidaas darteed ayay is-celisay nimankii meel fog ma aysan aadin wax yar kadib ayay soo noqdeen waxayna mar kale bilaabeen inay leh dhibaan markan ujeeddadoodu waxay ahayd inay dukaanka wax ka xadaan ninkii dharka casrabay ayaa istaagay meel leh ka horaysa si uu aragtideeda u xanibo halka labada nin ee kale ay alaabtii jeebabkooda ku gurayeen laakiin leh horay ayay u fahamtay qorshahooda markii ay baxeen waxay wacday saaxiibteed si ay shaqada uga beddesho kadibna keligeed ayay daba gashay leh waxay nimankii ku raacday jid cidhiidhi ah waxay aragtay iyagoo si degan u qaybsanaya alaabtii ay xadeen leh waxay ku amartay inay dib ugu laabtaan dukaanka oo ay lacagta alaabta iska bixiyaan laakiin nimankii gebi ahaanba way yasaan ilbiriqsigii xigay leh waxay bilowday inay la dagaalanto mid ayay dhulka ugu riday hogaamiyahoodii aad ayuu u xanaaqay wuxuuna ku dhaartay inuu leh ka adkaan doono laakiin waqti badan ma qaadan saddexdii ninba leh ayaa ka adkaatay mid kasta wuxuu ballan qaaday inuu dukaanka ku laaban doono oo uu bixin doono lacagtii alaabtii ay qaateen leh waxay raggaa siisay cashar adag oo aysan iloobi doonin laakiin waxa aysan leh ogeyn ayaa ahaa in nin meel dhinac ah taagnaa kaas oo dhacdada oo dhan telefoonkiisa ku duubayay